xafladan oo ahayd mid taageero iyo soo dhaweyn lagu muujinayay suldaanka guud ee beesha uu ku jiray Suldaan Maxamed Suldaan Ducaale Suldaan Kaahiye ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadan oo ahayd mid ballaaran ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf, xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, siyaasiyiin, waxgarad, aqoon-yahano, salaadiin, dhalinyaro, haween iyo marti sharaf kale. inta ay xafladu socotay waxaa goobta lagu soo bandhigay geeraaro iyo baraambur taageero loogu muujinayay suldaanka. qaar ka mid ah waxgaradkii iyo odayaashii xafladan ka qayb galay isla markaana goobta ka hadlay ayaa sheegay in Suldaan Maxamuud uu yahay nin karti badan, awoodna u leh shaqada loo igmaday, iyagoona alle ugu bariyay in mas'uuliyadan culus ee loo igmaday uu alle u fududeeyo. maanta waa maalin weyn, waa maalin sharaf leh, waa maalin qadarin leh, waa maalin la soo doortay suldaankii beesha Hawiye Habargidir Sacad ugu jire waa maalintii la soo doortay. suldaan soo dhawow, aniga waxaan ku hadlayaa bahweynta beesha Xawaal, 4 sano talisi adeerkiidu waa ku garab taagan yihiin. suldaanow waa lagu hanweeyahay, abtirsi fiican iyo taariikh fiicanna waa leedahay. waxaana u daliila nima ragga garbaaga fadhiyaana u daliila inaad magac leedahay. waan hubaa ragga garbaaga fadhiya inaysan goob walba soo istaagin. dadka meeshaan joogo maanta ku soo dhaweeyaan u jeednaa, hamuunta lagu qabaan u jeednaa. dalkan iyo dadkan inay hore u socdaana la rabaa. waxaan rabnaa shaqartaada oo qurux badan inay ka bilaabatay Galmudug iyo Hobyo iyo caradii halkaas ahayd. aayadaha quraanka markii la furayay ee Sheekh Cali Xuseen loo dhiibay in suldaanku oo suufiye ka yimid halkaasan ka akhriyay aniga. dadkana waa kala aqaan, waana ka dhashay, in badanna waa ku soo dhex jiray. suldaanka marka maanta waxa anaga aan ku leenahay inaan soo dhaweyno. suldaanka hore loo soo caleema saaray beeshiisu amba beelweynta ugu jira waa u soo waqlaleen. maantana Soomaaliya la dhax keenay ilaa uu ka yimid Habargidir. Axmed Ducaale Geele Xaaf, madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug oo munaasabada soo dhaweynta dhankiisa ka hadlay ayaa sheegay in suldaanka uu yahay hoga tusaale, isla markaana uu awood buuxda u leeyahay shaqada loo igmaday. waafajiyo ilaahay madaxda nooga dhigo kuwa cadaalad sameeyo fanado aqrada toosiya. ilaahay nooga dhigo suldaankana, ilaahay nooga dhigo kii aan ku weersano oo aan maaragtay ilaahay oo farxad nooga dhigo, wax fiican noo qabta, sidii hore noo dhaama, aan dowladda iyo siyaasadda ku milmin. dowlad suldaan siyaasad ku milmay. Suldaan Maxamuudow waa ka daalay yahay dhicin arrintaas. intaasaan kaaga digayaa oo dadkii doortay dantiisii ku beddeshay inuu siyaasad ka shaqeeyo. Suldaan Maxamuud Suldaan Ducaale Suldaan Kaahiye oo munaasabadan soo xiray ayaa sheegay in uu la imaan doono waxqabad ay jeclaystaan bulshada uu matalaada u yahay iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed. dadkii ka qayb galay tacsida magaalada Hobyood ee u badnaa beesha ugu jire fadhi ayay qaateen, waxayna ka codsadeen reer Ducaale ama reer Kaahiye inay booskaas soo buuxiyaan, qof u qalmana ay keenaan. wax process waqti badan isagoo socday bil ilaa 2 bilood waxaa go'aan lagu gaaray, reer Ducaale go'aan ku gaareen iyo reer Kaahiye inay aniga ii caleema saaraan booskii uu baneeyay Suldaan Cabdullaahi Suldaan Maxamed Suldaan Kaahiye. gaalkacay ayaan imid, waxaan ka soo bilownay dhaqanku meeshuu ahaa. reer Kaahiye, reer Ducaale, reer Kaahiye, reer Qallir, koofidii Cabdullaahi 5 oo waxba ka dhimanayn ayay ii cimaamadeen. kabacdina waxaan u gurubnay beesha Hilowle oo 3 qaybood u kala qaybsan oo ah Hilowle Wardheere, Cabdi Hilowle iyo Maxamed Wardheere. dhammaantoodna waxay nala qaateen inay ugu cimaamadaan koofidii Cabdullaahi 5 oo waxba ka dhimanayn. kabacdina guddi ayay sameeyeen, waxayna u gudbeen beesha ugu jire
laf ayaana loola fariistay dhammaantoodna waa nala qaateen intaa ka bacdina waxaa la sameeyey koofisaarkii ay sameeyeen beesha ugu jire أنا الصومالي Somali Cable مقدشو.